Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeenii ahaa su'aalaha iyo jawaabaha diiniga ah. Barnaamijkan ayaanu qaybtiidii hore ku qaadanay 10 su'aalood. Qaybtan maanta labaadna waxaanu ku qaadanaynaa 10 kaloo su'aalood iyo weliba jawaabahooda. barnaamijkan su'aalaha iyo jawaabahahi waxa uu kaa saacidi doonaa inaad diinta wax badan ka fahanto ama macluumaad badan aad ka kororsato adigoo ka kororsanaya asxaabtii magacyadoodii iyo weliba nebiyadii magacyadoodii adigoo xogo badan iyo macluumaad dheeriya aad ka kororsan karto adigoo kitaab iyo buug marsan. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan inagu soo gudbinayaa 10 su'aalood oo fudfudud iyo weliba jawaabahooda aan isla halkani kaga jawaabi doono. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Su'aalaha ayaan si toos u bilaaban doonaaye waa kuma ama yaa ugu horeeyay ee reer Madiina islaamay. Haddii su'aasha aad maqasho ama lagu weydiiyo waxaad ku jawaabi doontaa waxa ugu hor islaamay Sacad bin Suraara asxaabigii la dhihi jiray radiyallahu canhu. Su'aasheena labaadi waxay ku oranaysaa kumuu ahaa asxaabigii ku dhex dhashay Kacbada dhexdeeda radiyallahu canhu. Waxaad su'aashaadii kaga jawaabi doontaa haddii lagu weydiiyo wuxuu ahaa asxaabigii lagu magacaabi jiray Xakiim bin Xisaam radiyallahu canhu. Su'aasheena saddexaadi waxay ku oranaysaa waa kuma sayidka shuhadadu amaba sayidka shuhadada waa kuma. Waxaad ku jawaabi doontaa waxa uu ahaa Xamse asxaabigii Xamse lagu magacaabi jiray radiyallahu canhu. Su'aasheena afaraadi waxay ku oranaysaa waxaad sheegtaa asxaabigii nebiga u sheegay inuu Allah jecel yahay. Haddii ama su'aashaas ama maqasho ama uu qofku weydiiyo waxaad ugu jawaabi doontaa wuxuu ahaa Miqdaad bin Cumar radiyallahu canhu. Su'aasheena shanaadi waxay ku oranaysaa waxaad sheegtaa asxaabigii ku riyooday aadaanka. Waxaad ku jawaabi doontaa haddii aad maqasho ama lagu weydiiyo waa kuma asxaabigii ku riyooday aadaanka. Waxa uu ahaa Cabdullaahi bin Zayd. Su'aasheena lixaadi waxay ku oranaysaa waa maxay amaba sadaqada ugu fadliga badani waa tee. Haddii lagu weydiiyo su'aashani sadaqada ugu fadliga badani waa tee amaba sadaqa wax la siiyo qof teeba ugu fadliga badan waxaad ku jawaabi doontaa adigoodan oran waa lacag iyo waa wax kale. Waxaad ku jawaabi doontaa waa biyaha la iswaraabsho amaba inaad qof haraadana biyo waraabso. Taas ayaa ah ta ugu fadliga badan ee sadaqada laga helo. Su'aasheena toddobaadi waxay ku oranaysaa waxaad sheegtaa asxaabigii malaa'igtu ka xishoon jirtay. Haddii su'aashani aad maqasho amaba lagu weydiiyo waxaad ku jawaabi doontaa waxa uu ahaa Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu canhu. Su'aasheena sideedaadi waxay ku oranaysaa waxaad sheegtaa asxaabigii markuu dhimanayay uu carshiga Allah u ruxmay. Haddii su'aashani aad maqasho amaba lagu weydiiyo waxaad ku jawaabi doontaa waxa uu ahaa Sacad bin Mucaad al-Ansaari radiyallahu canhu. Su'aasheena sagaalaadi waxay ku oranaysaa waa kuma sirhayihii nebiga. Haddii su'aashan lagu weydiiyo amaba aad maqasho waxaad ku jawaabi doontaa sirhayihii nebiga sallallahu calayhi wasallam. Waxa uu ahaa Xudayfa bin Yamaam radiyallahu canhu. Su'aasheena tobanaadi ahna su'aasha ugu dambeysa muuqaalkeena maanta waxay ku oranaysaa jannada yaa ugu horgalaya. Haddii su'aashani aad maqasho amaba lagu weydiiyo su'aashani waxaad ku jawaabi doontaa waxa ugu horgalaya nebigeeni Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Intaas ayaan kusoo afmeerayaa amaba kusoo dhameynayaa muuqaalkeena maanta 10 su'aalood ee jawaabahooda diiniga ahi. Waxaan filayaa ugu yaraan inaad wax ka fahantay. Mahadsanideen. Wasalaam.